ololaha wacyigelinta iyo ciribtirka qishka imtixaanaadka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Berbera munaasabad lagaga hadlayay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Xirsi iyo gudoomiyaha imtixaanaadka Daawud Axmed Faarax ayaa ka qayb galay sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil arday ka socotay galaasiyada 8 iyo 4 ee u fadhiisanaya imtixaanaadkaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale munaasabadan oo ka dhacday xarunta jaamacadda culumta badda ee Berbera ayaa halkaas ugu horeyn waxa hadal ka soo jeediyay isudwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibraahim Digaale iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera isla markaana soo dhaweeyay ololaha wacyigelinta iyo ciribtirka qishka imtixaanaadka oo ay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland sheegtay in sanadkan awoodda la saari doono sidii meesha looga saari lahaa barnaamijka ujeedadiisu waxa weeyaan wacyigelinta barnaamijka qishka oo aynu ognahay halista iyo dhibaatada uu dhalinyarta ku hayo sidaas daraaddeed madaxda sare ee wasaaraddu waxay go'aansatay gobolka Saaxil inay kaga dhawaaqdo barnaamijka qishka waddankoo dhami iyo dalkoo dhamina siduu uga faa'iidaysto dhammaan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka sanadkan waxay matalayaan gobolka Saaxil waxay matalayaan degmada Berbera waxaa laga sugayaa inaad natiijooyin fiican kaalmaha hore ka gashaan sheeyo xasuusta ilaahay ha galo ha ducaysto si baqdi la'aan oo kalsooniyaha ku galo horta qof waliba wixii uu bartay uu golaha la tagi doonaa waxaa la yidhaahdaa candho xoolaad ninba wuxuu gashaday uu ka maalaabaa la yidhi ninkii intii wax la baranayay waalidkuna una waxbaro ku odan jirin isaguna moobil haystay maanta inuu isku dayo inuu wax qasho weeyaan tala diidayay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Xuseen Xirsi iyo sidoo kale gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ujeedada kulankani tala saartay xasbi Allah wa ni'mal wakiil ad ilaahay tala saartay ilaahay dadaalkeeyo lagu tobanka sanaha ay ugu qaadin aduna dadaalkii la timaadi waa laba qodob soo maaha oo qodobka saddexaad waalidka qodobka saddexaad iyada haato maxay weeyii ardaygu inuu yahay arday markaa le inantiina inankiina way ku jiraan waxa weeye inuu waalid adeec saddexdaa qodob ardayga laga helo hadduu ducaaniga ha yimaado waa xanuun ka mid ah xanuunada halista ee dilaaga ah dawadiisuna waa kalsoonida qofka imtixaanka fadhiisanaya ee sanad dugsiyeedkaas inaad si fiican wax u soo akhrisato ood wax u soo barato ood u soo diyaargarowdaa waxay dawo ka tahay inaanad u baahan inaad qishto maadadii aad sida fiican u soo akhriday ugana soo shaqaysay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Professor Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in sanadkan ay wasaarad ahaan ay awoodda saarayaan sidii meesha ay uga saari lahaayeen qishka iyo waxyaabaha hoos u dhiga ardayda waxaanay sheegeen in guud ahaanba qaranka Soomaaliland la dardar gelin doono sidii ay u soo bixi lahaayeen da'yar aqoon leh oo aad isku warwarisaa maaha waxa laga qaadayaa wixii aad soo dhigatay intii laga qaadayay iyo percentage-ka ama boqolleyda laga qaadayayna waa lagu sheegay oo wata buuggii lagu dhibo buugga waad haysataa waxa lagu yiri inta wax laga qaadayaa form 1 intaas ka imanaysa dugsiga form 4 tahay form 2 intaas ka imanaysa form 3 intaas ka imanaysa walaas waxa saartaa meesha wax ka imanayaan ee culayska saaraysa maada kasta waa la dhigay waa lagu dhigay fasalka 8aad isagana sidaas leeg baa loogu sheegay meelaha imtixaanku ka imanayo waxa weeyaan buug wax walba waa qeexaya waxa weeyaan waxa laga doonayaa in aad horta kalsoonida la timaadid ololahani ayaa sanadkan waxa ardayda loo sheegay in la iska ilaalin doono wixii qish iyo sidoo kale dhibaato ku keeni kara imtixaanaadka qaranka ee u fadhiisanayaan ardayda fasalada 8aad iyo 4 Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera.